عبد العزيز waxaa tahay qabiir dhanka amniga ah sida hadii aan qaldanayn waxaad iga warbixisaa fikradaada ku aadan wuxuu ay kooridka dhanka sharciga amniga inta badan uu ka qabo in qof mas'uul amba xil dawlad haya oo xil mas'uuliyad haya amba aan dambi lagu haynin la qabto haddana la xiro oo xorriyadda laga qaado gaar ahaan waxa ula jeedaa raafka ciidamada Kenya xildhibaanada dawladda iyo shacabkii Soomaaliyeed ee ku dhaqanaa wadanka Kenya ay u geysteen mas'uuliyiinta marka la marayo tusaale ahaan habka qabashadooda ama sharciyan waxa weey tusaale ahaan haduu fal uu kula jiro marka gacanta oo flagrasiya ah waxa weey nidaamku wuxuu qabaa in la qabto waayo falkii baa lagu hayaa waa flagrasiyo laakiin hadii kale to system baa loo marayaa sharci kaas oo ah in loo yeero ama la weydiiyo su'aalaha kadib marka la weydiiyo hadii lagu qanco inay su'aalaha uu ka jawaabay sidii la rabay waxa weey waa la fasixi karaa hadii kalena waxa loo marayaa processkiisii dawladeed oo haduu dalka uu joogo marka dambi ka galo waxa loo marayaa maxay dawladdiisa baa loo marayaa systemkii lagu qaban lahaa ama ay dawladdiisa ku keen lahayd sharciga horteeda ama ha ka qaado xasaanada haduu mas'uul sare yahay ama yaanay ka qaadin waxa weey system nidaam ah oo sharciyan ah baa loo marayaa laakiin maaha systemkan hadda shaqeynayo aan aragno oo iska qaba system adduunka jira ma marka sharci ahaan ma waxa ay kula muuqataa arrin qaldan mise waa saxiix waa arrin qaldan mas'uul dawladeed oo xasaanad hayo xildhibaan tusaale ahaan in la iska xiro oo la iska qabto waxa weey waa khalad waxa u baahan tahay in loo maro hab sharciyada habka sharciyada waxa weey in qofka xilkii uu hayay ummad buu hayay dal buu hayay qaran buu hayay taas waxay tahay mid loogu gafay sharciga dalka iyo qarankaasi waayo mas'uulku iskama tagin dalka uu joogo nidaam buu ku tagay ama wuxuu ku tagay fasax oo hab caafimaad oo fiiso dalka ku helay ama wuxuu ku tagay hab shaqo ayuu dalku jooga nidaam buu ku jooga sharci markasta